bismillaahi raxmaani raxiim soo dhawaada channelkayga Baladi Official haddii ay tahay markuu horeysa fadlan subscribe inoo saar gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan fiidiyoyada aan idiin soo gelinayno shalay waxaan ka hadlay faa'iidada laga helo cabida badan ee biyaha maanta waxaan ka hadlaynaa dhibaatooyinka horseeda inay kiliyahaaga howlgab noqdaan maxay yihiin waa 7 siyaabood oo si khatar ah u dhaawici kara in kiliyahaaga howlgab ay noqdaan. 1. kaadida oo la isku celiya haddii waqtiga kaadida ay ku qabato aad ku kaadin weyso oo aad isku celiso waxay kor u qaadi kartaa halista in uu dhagax ku sameysmo kiliyahaaga. Iska ilaali. 2. in aad biyo kugu filneen aad cabin biyo la'aanta waxay kugu hogaamin kartaa in kiliyahaaga sunta ku bataan jirkana laga saari waayo. 3. cabida badan ee cabitaanada sajalka ah waliba sokorta ka buuxdo. Cabitaanada sokorta ku badan tahay waxay dhibaato ku yihiin shaqada kiliyaha. Iska ilaali. 4. hilibka guduudan oo aad loo cuno. hilibka guduudan wuxuu kor u qaadayaa in kiliyaha shaqo ka badan shaqadooda ay qabtaan taasi oo dhibaato ku ah shaqada kiliyaha. 5. in cusbo badan la isticmaalo. cusbada badan ee gasha jirka waxay kugu sababi kartaa dhiig-kar iyo in kiliyahaaga shaqo gabaan. 6. hurdo kugu filneen in aadan helin. hurdo la'aanta waxay dhibaato ku tahay in nadiifinta iyo is-cusboonaysiinta unugyada kiliyaha meesha ka baxaan. 7. lambarka 7 iska ilaali. kiliyahayay ka howlgabin. in si aad loo cabo kafeyga. maadada ku jirta kafeyga ee loo yaqaano caffeine haddii ay kiliyaha ku bato waxay sababi kartaa isku dheelitirnaanta dhanka dheecaanada kiliyaha ay muumusho kadibna howlgab uu ku dhaco kiliyahaaga. fadlan haddii aad ka heshay kilibkan waxaan si naxariis leh kaaga codsanaynaa inaad u gudbiso walaalahaaga Soomaaliyeed ee kiliyaha howlgab ka naqan rabo si ay uga hortagaan ayna isku daaweeyaan. waa si naxariis leh baan kaaga codsanaynaa. waa ku mahadsantiin daawashada fiidiyogan. waa Baladi Official oo idin leh waqtiga ha idin wacnaado. Thank you very much for watching.